madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo uga digay xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud in ay joojiso ka fogaato abaabulka qabyaaladeed ee ay wado ee ay ku kala qaybinayso bulshada Soomaaliyeed. waxaa maalmihii ugu dambeysayba taagnaa beegsi xoogan oo lagu hayo siyaasiyiinta ka soo jeeda beelaha digil iyo midfle iyo sidoo kale daarood isla markaana xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud mas'uuliin kamid ah oo uu kow ka yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ay codsanayeen in tallaabo sharci laga qaado isla markaana loogu daato guryahooda ay kaga sugan yihiin magaalada Muqdisho. sheekh shariif sheekh axmed iyo sidoo kale xasan cali khayri ra'iisul wasaarihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa digniino kala duwan ka soo saaray go'aanada ka soo baxaya dawladda federaalka cadaadiska lagu hayo siyaasiyiintaasi iyo sidoo kale habka qabyaaladeysan ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku beegsanayo siyaasiyiinta ka soo jeeda labada beelood ee aan sheegnay waa digil iyo midfle iyo sidoo kale beelaha daaroode. qodobkeena koobaad ayaan ku dul istaagi doonaa. qodobkeena labaad waxaan iyadana ku eegi doonaa hoobiyaal xalayto lagu garaacay garoonka weyn ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale xerada xalane ee ay diblomaasiyiinta caalamka ay ku sugan yihiin. hoobiyaashaasi iyo sida waxay u dhaceen ayaan iyadana eegi doonaa. waxaan dhinaca kale iyadana dul istaagi doonaa dawladda Itoobiya oo dhoolatus ciidan ka wada xuduud beenaadka u dhaxeeya dawladda deegaanka Soomaalida ama Soomaali galbeed iyo sidoo kale Soomaali weyn. haddaba maxay tahay dhoolatuska Itoobiya ay ku soo bandhigayso xuduudda Soomaaliya dawladda federaalka weeye ama dhulka dawladda federaalka weeye iyo sidoo kale dawladda deegaanka Soomaalida. waxaa dhinaca kale iyadana dul istaagi doonaa eegi doonaa saraakiisha Itoobiya ee ku soo noqonaya xuduudaha Soomaaliya iyo sidoo kale dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida iyadoo waliba maanta ugu dambeysay magaalada Jigjiga ay soo gaadheen saraakiishii ugu sareysay ciidamada ama laamaha amniga ee dalka Itoobiya. haddaba waynu eegi doonaa abaabulka Itoobiya ay wado cabsida xoogan ee soo wajahday iyadoo maalmihii ugu dambeysayba Itoobiya ay soo saareysay go'aano kala duwan ayna ka soo saareysay xiisadan markaasi u dhaxaysa ama soo kor xaradahan soo kordhay ee la xidhiidha imaanshaha ciidamada Masar ay Soomaaliya imaanayaan. haddaba Itoobiya maxay tahay sababta ay ku diidan tahay in ciidamada Masar ay qayb ka noqdaan hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee dabayaaqada sanadkan imaan doona ee wadamada badan ee Afrikaanka ay ka mid noqonayaan? muxuu yahay walaaca Itoobiya haysta iyo cabsida soo wajahday? waynu dul istaagi doonaa. hadduu allaydmo soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga. aynu ku bilownay maalmihii ugu dambeysayba magaalada Muqdisho waxaa ka taagnaa dood adag oo la xidhiidha kala doorashada ciidamada Itoobiya iyo Masar. waxaa sidoo kale iyadana jiray go'aano soo baxayay oo ay soo saarayeen siyaasiyiin iyo sidoo kale odayaal dhaqan oo inta badan ka soo jeeda beelaha Hawiye. waxayna ku baaqayeen in tallaabo sharci laga qaado xildhibaano iyo sidoo kale siyaasiyiin taageeray shacabka koonfur galbeed oo dibadbaxyo dhigay taasoo waliba ay ku taageerahayeen si joogitaanka ciidamada Itoobiya ayna kaga hor imaanayeen ciidamada Masar inaysan deegaankooda imaanin iyagoo markaasi u sababeynaya in Masar iyo Itoobiya haddii ay meeshan iskugu imaadaan ay noqon doonto garoon dagaal oo shacabkooda lagu kor dagaalami doono taasna aysan marna aqbalaynin. xildhibaanadaas iyo siyaasiyiinta waxay taageereen aragtida shacabkooda iyo maamulkooda iyo deegaanadii laga soo doortay. waxay sheegeen in loo baahan yahay in laga doodo laga arinsado laga fadhiisto imaanshaha ciidamada Masar ee la keenayo Soomaaliya iyo bixitaanka ciidamada Itoobiya la isweydiiyo maxaa ka dhalan kara, la isweydiiyo keebaa inoo roon, loo codeeyo habraac saxa la soo mariyo oo baarlamaanka la soo mariyo oo hanaankii wadan kale uu ku imaan jiray la soo mariyo. arrintaas xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale siyaasiyiin beelaha Hawiye u badan iyo odayaashii dhaqanka Hawiye ee xasan sheekh maxamuud tuubada ugu jirtay wax la dhuuqayay arrintaas way dhibsadeen si weyn bay uga hor imaadeen. waxaa la yidhaha arrintaa ma aqbalayno, xildhibaanadu waa qaran dumis, xildhibaanada waa in tallaabo sharci laga qaado, guryahooda waa in loogu daato, waa in la soo qabto, waa in sidan la yeelo. gudoomiyihii gobolka Banaadir Madaale intuu soo fadhiistay waraysi ayaa wuxuu leeyahay waa in tallaabo sharci laga qaado wey, waa in sidan laga qaado wey, waa in xildhibaanada iyo sidoo kale garsoorayaashu ay tallaabo ka qaadaan wey. waa arrinta moogtahay caruurtu inta badan waxay banaanka kaga sheekaystaan waxa ay gurigooda ka soo maqlaan. xasan sheekh maxamuud waxay ka soo maqleen bay banaanka la soo fadhiisteen.
nin walbana dhadhamada iyo intaa yar iyo duqi xasan ah baa loo kala ordayaaye kuma jirto wadaniyad ah in kursigan uu hayo uu beel iyo dad ku matalo ummad soomaaliyeed uu ku matalo kuma jirto mid walba wuxuu rabaa siduu xasan sheekh maxamuud iskaga gadi lahaa wax ula dhuuqi lahaa kursiga usii fadhin lahaa arrintaas baa horta maalmihii ugu dambeeyeyba magaalada muqdisho ka taagnayd oo la isku mari la'aha baarlamaanku way ka doodeen waa laga hadlay waa la isweydiiyey waa lagu kala jabay siyaasiyiintu waxa weye si goosgoosaa la isku arkay waa lagu kala jabay odayaashii hawiye qaarba waxay dhaheen guryaha loogu datay nimanka hala laayo qaarna raaligelin bay ka bixiyeen waxay leeyihin arrinta anagu lama qabno arrinta horta soomaaliya o dhan baa ku kala jabtay imaanshahan ciidamadan masar iyo ka bixitaankan ciidamada etoobiya haddaba siyaasiyiinta sida weyn arrintan uga hadlay ee degniinta ka bixiyey waxaa ka mid a sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre labadaaba digniin bay ka bixiyeen waxayna uga digeen dowladda hanaankan abaabulan ee habka qabiilaysan qabyaalada ku abaabulan in la joojiyo oo xukuumaddu ay joojiso oo ay u soo jeedsato midaynta bulshada soomaaliyeed wada jirkooda xallintooda iyo in shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta dowladdu ay kasbato haddaysan kasbaninoo dee ay tiraahdo dowladdeena lagu soo duulay waxa weye qabiil ay abaabusho dee qabiilka ma xoog badnaa sheekh shariif iyo marka xasan cali khayre iyagu toos bay u abbaareen oo waxaa la yidhi war xukuumaddu ha joojiso hanaankan abaabul ee qabyaaladaysan ha joojisaa la yidhi oo beegsiga ha ka joojiso siyaasiyiinta digil iyo midhifle iyo daarood ee lagu hayo ha joojisaa la yidhi xukuumaddu ha ka joojisa arrintaa digniin adag bay horta xukuumadda ay dul dhigeen xasan cali khayre waa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya iyo sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya si fiican bay u hadleen way fahmeen ilaa warag waa siyaasiyiin weye way fahmeen xasan hanaanka wax ku wada waxaa la yidhi waa qabyaalo taagan alla maxaa ceeb meesha taallaa alla maxay ceeb meesha taallaa duqi xasan ah horta ceebtiisi bay banaanka soo dhigeen ilaa waa rag la dhashay iyaga hawiyaa way fahamsan yihiin war kacaay hawiyow oo bay arkeen meesha iyo odayaashii xoogaa loo kala dirtiro leeyahay kaca dowladdiina lagu soo duulay waa ka madaala meesha soo fadhiistay ale asagoo waxa weeye magaaladiisa hoobiyaal lala dhacayo horta halkaasaa la kala marinayaa kala doorashadii etoobiya iyo masar midna inooma roona anigu ahaantayda halkanaan la taaganay midna inooma fiicna waa ajaanib ha laga joojiyo labaduba dalka ha laga joojiyo dhallinyaradeena soomaaliyeed hala siiyo lacagaha malaayiinta ku baxaya qaramada midoobay ha laga dhaadhiciyo haddii rag la yahay oo siyaasiyiin la yahay oo wadaniyiin la yahay oo wax la kala garanayo oo ay waxa weeye soomaalinimadu ay ku weyn tahay xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisu lacagtaa ha ka soo dhameeyaan qaramada midoobey baa bixinaysa ha ka soo dhameeyaan in wiilasha soomaaliyeed la siiyo inta shabaab ku jirta 2 bilood bay kaga soo wada goosanayaan ay ku imaanayaan ciidamada ugu soo biirayaan 2 bilood way ka soo wada goosanayaan waa laga soo qulquli cali dheeri iyo mahadkarata iyo axmed diiriyo meel fadhiya la soo qaban markaa ama iyagaa bay soo dhiibayaan lacagtaa wiilasha soomaaliyeed haddii maanta laga dhigo askariga soomaaliga $1,000 buu qaadan maanta haddii la yidhaahdo ilaan kan midowga waxa weye ajanabiga wuxuu qaadanaya $2,000 $1,000 buu qaadanaya haddii la yidhaahdo dhalinyaradu way kasoo wada qulqulayaan kuwa waxa weeye ganacsada xataa dukaamadooda way xidhayaan askar baa la wadaaya askartaa lagu wada biiraya marka dowladdu hadday ru sheegayso sidaas ha samayso haddii kale nacnacda ha iska dayso labaduba laba cadow wey masar iyo waxa weye etoobiyaba laba cadow wey ummadda soomaaliyeed danteeda uma imaanayaan haddana dan uma hayaan shacabka ay markaa meelaha ay ku kala sugan yihiin iyo imaanshahooda shacabku marba hadday laba cadow yihiin cadowgii iyaga u yara roon bay dooranayaan marka etoobiya noo roon bay dheen koonfur galbeed taasi waa taasoo horta bulshada ha la ogsoonaado jacayl ay u qabtaan reer koonfur galbeed jacayl ay etoobiyaan u qabaan etoobiyaan jacayl ay u qabaan reer koonfur galbeed uma aysan taageerin anigaa koonfur galbeeda anaa og waxa dan waa anaa garanaya etoobiya dan uma aha masarna kaba sii liidata masarna kaba sii liidata taasi waa taasoo waa doodayay adkayd ee taagnayd ee maalmihii ugu dambeeyaba taagnayd ilaa haddana taagan dhinaca kale xalay hoobiyaal baa lagu garaacay garoonka weyne aadan cadde magaalada muqdisho iyo sidoo kaleeto qaybo ka mid a xerada xalane ee ay ku sugan yihiin duulamaasiyiinta caalamka ilaa iyo 7 hoobiyaan nig waa loo kala qaybiyey khasaaro ayaa soo gaadhay dad shacaba oo xaafadaha ku ag hareereysan deganaa ayay khasaaro xoogan soo gaadhay intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacantay allah u boogadhayo madaale waxaan leeyahay madaale si toos ugu socotaa
madaalow hoobiyaal baa lala dhacayaa garoonkii internationalkaha eed adigu xukuntay amni ka dhig taas koonfur galbeed waxba kaama soo jiro xildhibaanadu ayagaa waxa weeye ikhtiyaar u leh waxa ay taageerayaan isay yeelayaan sababtoo ah xildhibaanku iyo waxa weeye siyaasiga iyo shacabkaba xaq buu u leeyahay aragtidiisa inuu ka hadlo qofka muwaadinka soomaaliga aragti buu leeyahay aragtidiisa wuu cabiri karaa khasab maaha in aragtida adiga xasan sheekh maxamuud adiga ninka ku wataa waxa weeye aragtidiisa la qaato khasab ma aha magaalada waxa weeye muqdisho dib ugu soo laabo shaqadii lagu idmaday dib ugu laabo amni darrada haysata dib ugu laabo isbaarada meel walba adigatay dadka ka qaad shacabka cabashadooda dhegeyso madaala intaasaan leeyahay dhinaca kaleeto etoobiya duulaan bay soo wadaa markii horena duulaanka way waday haddana way sii laban laabtay maalmahan oo dhan ba xuduudan dhinacan soomaali galbeed soomaaliya la wadaago ciidamaa lagu soo daadguraynayay oo lagu soo bandhigayay saldhigyo waaweyn baa laga sameeyey ciidamadii cirka xataa waa lasoo raray fayrfayr dusheedaa la keenay waxaa looga sameeyey waxa weye garoomo waaweyn oo diyaaraduhu ay ku degaan etoobiya haddoon bay indhaha kala qaadayba haddoon bay indhaha kala qaaday ma aqaano meel ilaahay wax ka tusiyey duqi abiy axmed waxaan u malayn faal buu ku eego wuxuu arkay miyaa dowladda deegaanka somalia shacabka dowladda deegaanka somalia oo gu-i rabo arkaan u malayn masar waxaa ciidan yaroo 5 kun oo la keeno masara cabsida intaana waxaan u malay inay ka keenin shacabka soomaali galbeed oo gu-i rabta oo dowlad madax banaan noqon rabto arkay baan u malaynayaa saldhigyo waaweyn buu iska samaysto diyaaraduhu ay ka duulayaan qumaatiga u kacay ka duulayaan diyaaradihii baaba la keenayba waaba la keenay diyaaradaha la keensaday goday saldhigeedii oo 20 sano ka hor ugu dambeysay bay boorka ka jafteen ayadana saldhig ciidamada cirka laga sameeyey iyo kuwa waxa weeye taangiyada laga sameeyey maanta ugu dambeysay waxay imaaday magaalada jigjiga saraakiisha ugu sareyso ninkii la dhahayay burhanu jula oo horkacayo ayaa jigjiga kasoo degto imaatay saraakiishii Etoobiyaanku saasay ugu soo qulqulayaan dowladda deegaanka Soomaalida waxay laakiin ogsoonayn maalintay dagaal dowladda federaalka Soomaaliyeed ama Soomaali weyn ay la galaan Soomaali galbeedna inay dhawarka dambe kaga bilaabayaan hal Etoobiyana ka laaban maayo hal Etoobiyana kama laabanayo xaqiiqada weeyaan shacabka Soomaaliyeed marka waxaa leeyahay idinka midnimadiina iyo wadajirkiina iyo dowladdiina iyo dowladnimadiina ka shaqeeya Etoobiya wax waswaas ah ka qabina Etoobiyadan hadda xasan sheekh maxamuud Etoobiya wayna diiday uu leeyahay waxba kama jiro Etoobiya Soomaaliya inay madax banaan tahay way ogtahay Etoobiya inay dowlad tahay way Soomaaliya dowlad tahay way ogtahay laakiin waxay ka faa'iideysanaysaa siyaasad xumada dowladda marka adiga ku haysata iyo sidoo kale kala daadsanaantaada ayay ka faa'iideysan laakiin shacabka Soomaaliyeed oo mida markay arkaan oo ka soo hor imaaday Etoobiya way qulqulaysaa sababta way ogsoon tahay ilaa iyo 1 kilomitir oo xagga Etoobiya inaga xigta Soomaali baa degan Soomaalina waa Soomaali xaqiiqada ay sheegayaan dowladda qabyaaladaynaysa dowladda wax kala qoqobaysa dowladda siyaasad xumo ku wada dowladda hubka qoysna siin qoysna u diidaysa dowladda waxa weeye hanaan qalafsan wax ku wada dowladda waxa weeye gacan bidixaynaysa shacabkii qaybna waxa weeye darjinaysa dowladda sahanangeed socdo siyaasadeed toosan lahayn waa midda xasan sheekh maxamuud waxaan ka hadlayay dowladdaas dowlad liidata mooyeen haddii dowlad fiican la helo shacabka Soomaaliyeed waa hal midka gindin agtiisa jooga iyo midka jooga diridhaba kasi shishay waliba iyo midka jooga halkaas Djibouti oo dowlad kalaaba ninka jooga iyo midka jooga barta iyo Gaarisa iyo waliba ka soo koray meesha la yiraahdo bangalka shishay jooga Soomaali waa Soomaali halkaas ay Soomaalidu ka soo duuliyay oo ka soo dhalinyaradu ka soo dhaqaaqayaan maalinta Ethiopia Soomaaliya ay noqoto laakiin waxa inta ka horeysa waa in dowlad dadku ay wada sameyn yihiin la helo waa in dowlad cadaalad la helo waa in dowlad siyaasad saxan la helo waa in dowlad dadkii midayn la helo waa in dowlad wadaniyada la helo waa in dowlad musuq maasuq ka hufan la helo haddaan la helin maxaa la isku sheegaya war maxaan isku sheegaynaa nin walba cidda dan kuwa marka garabka saar haddaan la helin inta ka inta laga helayo nin walba cidda ku roon garabka saarno waa sida sheekada koonfur galbeed ku dhawaaqeen haddaan marka reer koonfur galbeed anagu laba cadow isku kaan kor dagaalamay mahayaane kuwaasan hadda dhinaca ku haynaynaa intaan iska dulqaadayna iyaga naftirkoodaaba dulmi ugu hayo dhibaato ugu haya intaan iska dulqaadayno kuwaasaan garabka ku haynaynaa kuwa kale maya kuwa xasan uu ku danaysanayo no kuwa ummadda Soomaaliyeed dan u ah inta laga helayo
ama ummadda soomaaliyeed oo isku dan ah aan ka helayno kuwaasaan garabka ku haynaynaa. ninkii cadow noo arkay iyo ninkii siyaasiyiintaanada uwaarsan iyo ninkii xasaanad xildhibaana ka qaadi karow waad u madax banaantahay ka qaad. dadkii soo doortay way aadayaan, halkaas bay ku noolaanayaan, nolol ku filanna way haystaan. dhib ma laha, muqdishona waa laga kala tegi. ninkii ka maarmo xasaanadda ha ka qaado xildhibaanada guryahooda ha ugu daato oo ha uwaarsado. ninkii ka maarmo wey, sidaasaan leenahay iyadana.